وعاني وناكسن داود يالكسو دوادا نوال شو كلا سعطان نوال channel حان مين تجوبنا مرتي وقع كوفي سلاني كوفي شاح سلعبينا يو حنكو هاي رستورانتي او قروح بدن وما شاء الله كعسومي شكر الشرف الى ما انت الى فلاقين يسوي برنامجي إذا برتين جلس سعتين نوال قروح channel شوكي سوداو نوال ومحسنت هاي وانا دوّا هاي channel كاجي أصحاب تادن والسلام هاي thank you bye ما شاء الله ما أنت وحن كهلينا أيامها أنت محق صوب وقتي برهب الشدة بحياة ولا ده هاي على الدون الدون بحياة ضد شروط السوق قرنا يله يا مركين وحن لنا هاي شغل ما شاء الله حكلا ده هاي رمهاس شدة صوب برهاي سو على الدون كه runtii waa wax oo aad loogu farxo guriyo islaam ayaa la dhisayaa guriyo Soomaaliyeed oo wad ayaa dhalanaya waa talaabo wanaagsan balse calafdoonkaas ma aqaan xilligaas inay Muqdisho joogtay xafiis mar waxaa jirtay Monopolio degmada Shibis qofkii yaqaana laga furay xafiiska gurdoonka la dhihi jiray joornaalada lagu soo qori jiray waa ka sheekadaas waxa qurbaha ka joogtaan u balayda qurbahana waxaa jira meelo yare masaajidada ay ku hayeen oo la lahaayeen guurka laga dadka calaftoonka iska soo diiwaan geliyaan iyo website-yo oo maaragtay dadka ka soo registraysan jireen sida caalamka oo kale caalamka oo kale nimanka iska bartaan iyo dumarka qofku xiiseenayo da'da diinta wax uu rabo ku dooranayo sifa uu rabo صح runtii waa wax fiican Nawaal adiga see waragtaa adan kugu celiyo wallahi horta wax walba waxa wanaagsan gabadha haday gabar tahay wiil yahay inuu dadka waalidkiisa iyo dadka qaraabadiisa la raadiyo qofka guursanayo haduu qaraabadii iyo ehelkii isleeyahay ka war u ka boosaya oo sida naruuro ay xal u arko waa sax macquul badana oo yani dadka dhalinyarada ah hooyada raadi ma dhahayo horta hooyada waa ka xishoonaya ama aabiga uu ka xishoonaa laakiin guurka badana diinta waxay ku dhigi jireen u raadi gabadhaada wiilkaada u raadi runtii marka arrintaas wiilkaaga ama gabadhaada aad waxa la dhisaysid waxaa laga yaabaa inuu habi ku ahayn oo dooqiisa iyo adiga dooqaad raadinay moogtaa gabadhaad ku qanacsantaad wiilku doonay wiilki gabadhaad ku qanacsantaad la raadinay moogtaa habartee iyo waxbaad farsameynay qabiil iyo marka laakiin wiilka wuxuu habi ku yahay marka labadiina habi inaad wada noqotaan waa kisto waxa umaleynaa 100% ma noqonayso inuu ku xushmeeyo oo isdhaho qofkan hooyadaha ku doortay way dhici kartaa ama aabaha ku dooray moogtaa waa run marka waxyaabaha qurbaha badana ugu dhibka badan in gabdho yar ninaysan aqoonin intay meel kula ballamaan maxaan ku dhahay website ka bartaan qatar ku galaan koor wiil baa shaqada nin dhaqtan ka bartay shaqada ugu yiri gabar Soomaali gabar yar baan website ka baranay haye meel baan ku casuumay halageeda socotay marka gurigeena qamri bay iska badisay marka sheeko cajiib qatarteeda leedahay gabdhaha maaragtay nimanka la ballamaayo wax kastaan ku sameyn karnaa dhahay gabadha marka gurigeena ugu timid qaligeeda ahayd lama socon mahrum lama socon marka uu la yaab uu la tacajab iska cabtay waxbay marka waana dad muslim marka waxa gabdhaha dayaca jir karaa website dadka laga baranayo gabdhaha qatarta soo karaan marka qofka bini'aadamka ah aad baratay ee aadan aqoonin illa aamino 100% waxay leedahay dhibkeeda leedahay صح qofka caqabad ka soo la kulmi kara dhiiqo luga la geli kara adduunyada ay 100% lees aamina ma fiicnaba waarun hada qasooyinka way baadiyay dadka marka dhageystaan way waalidkii dhageysan jiray bal nooga sheekay mid kamid ah qiso waxa jirta oo maxaan ku dhahay aniga ayeeday Allah u naxariistay ku timid ceelka biyaha imaanayna la gabdho waaweyn oo maasha Allah loo dhahay maya wiil geel kaasoo bixiyo ma ogiye wiil kale boqolkii halaad 120 halaad tafiitus wahay tafiitus ma soo celis hada moogta wiilasha waxa la jiray intaasoo geela bixiya haye gabdhii marka intaasoo geela markii laga bixin waayay gabadhi weynaata maxay sameynaysaa
gabar weyn waa reer hore isku ridaysaa marka is waqti isqadime bisinka markaas waxaa la dhahay gabdhaha intay soo raacaan guriga soo baxaan ceelasha biyaha imaan jireen wiilashka daabina ceelasha hobaleey markaas xariid war adinka xagee ku socodin gabdhayo xagee ka timaadeen markii la dhahay markaas waxay dhihi jireen waxay dhaheen la yiri war waxaan nahay anaga rag iyo rabidoon maaqaana qisadaas ma maqasho may rag iyo rabidoon waan maqlay kelmadaas laakiin sidee ku timid ha mama okay socda oo inta imaadaan oo odayaasha ka soo fakada oo guur doonaya imaan jiraan ceelasha imaanayaan war maxaa rabtiin xagee ka timaadeen markii rag iyo rabidoon meesha ku imaadeen meesha laga guursan jiray gabdhaha markay wiilasha kala dhahaa gabadhan aniga guursanay war meesha gabdhihii lagu kala qaato aabihii loo dooli jiray odayaho haye maxaa iyo la qabo already la guursado marka sheeko cajiib runtii qisada anaga ayeeday ku dhacday loogu sheekeeyo qisa runa okay marka qisooyinkaas baadiyaha waa jireen runtii guurka waxaa waaye sidii Soomaalidu waxay kala tirahaa waa god mugdi oo gacan loo deystay godka markuu mugdiga yahay aad gacanta u deysatid ma garan kartid in laga qaniinayo iyo inaad malab ka muudsanaysid marka guurka sidiisaba waa nasiib bay laki waaye marka qof walba horta nasiibkeeda calafkeeda ayaankeeda Allah ka roonaysiyo waa la isu duceeyaa guurku wuxuu u baahan yahay sabar qorshe wax badan u baahan yahay waa runta marka waxaa la dhahaa badanaa Soomaalidu waxay dhahaan guurka hooyo oo maaragtay hooyada maxaan ku dhahaa waa geed camal salkiisa ayada waxay jirtay loo sabarka bay waxaa jirtay hooyadu waa tiir dhaxadka guriga waaye sax marka hooyadii baa badanaa la dhahaa adiga dul qaado laakiin hadda la sabrina hooyadu waxa laga yaabaa in caruurteedu qof walbo guri walbo qurux badan iyo wad walbo kaaga gacma isheesta reerka sabar buu ku soo ma aragtay oo ku soo dhigtay insha Allah guriyaha loo sabro guurkana dhalinyarada guurdoonka ahna dhalinyarada guurdoonka horta ka fiirsada haddii ay calaf doonka noocaasi aad damacdaa inaad go'aan qaadataa lama celin karo markaa qofka dhalinyarada bal xoogaa bal tijaabooyin iyo talooyin badan sameeya ha fududaanina dadka ehelka kula ah dadka kugu dhaw talada ka go'do bal la kaasho oo intaas ku liibaanta intaas ku hungoodaa ee aad waxaadan arkeen arkayaan maqta waa sax waxa kale oo anaga waana aan dhigi karaa qabiilka guurka qabiilka ah oo hadda ka hor qiso waxaan maqlay gabar keensatay wiil marka qabiil baa lagu ceeriy wiilka gabadhii wiil qabiil baa lagu kala way dhacdaa Soomaalidu waxa horta qabiilka umidaa ka qaldan maqtahay للتعارف هو إلا اسكو أقون صدقاي قبيل كم ما قبيلة داخل يا مركب إن شاء الله أنا أول بصوماليا أنا هاي بالمال كلام جرني وأسود لنا يحدد بارنا هاي مال لما كلا جرو مركب إن شاء الله قبيل كقاب كنا استعمالنا بال أهل جفوا قادو دقت المسلم يا هاي وأبكاري وقد صوالك كلها بلايا أما قف قبل هديك يا ستو ويلسلانا ودين تيجي هايستا يعني أنا ويلكي قبلتي باللغو سبوت كرايو إن شاء الله ما عرفتي لغو تاغير هاي برنامج كي قبل على سوق قاري قبل على سوق قاري شغلي أداء ما سنت هاي داوديال أداء ما سنتين جبت بقول مدونه نبت قليو برنامج أصحابتي لو ذاك سبسكرايب تركوا عشان مساعدتي مع السلامة